iyadoo laga soo laabtay fasaxii isla markaana la wada furay dhammaanba dugsiyada dalka jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa maanta ay mudaharaad aad u ballaaran oo aan loo kaalan ay ka sameeyeen waalidiinta iyo ardayda dugsiga sare ee Guutaale Secondary School ee magaalada Caynaba kaasi oo maalintii tobnaad u xiran sababo aan la garanayn isla markaana aanay waxba ka qaban wasaaradda waxbarashada jamhuuriyadda Soomaaliland waalidiinta iyo ardayda dugsigan ayaa eedayn ballaaran u soo jeediyay wasiirka wasaaradda waxbarashada jamhuuriyadda Soomaaliland Marwo Samsom Cabdi Aadan taasi oo ku tilmaameen inaanay waxba ka qaban xaaladaha marayo dugsiga sare ee Guutaale Secondary School sidoo kale waxay eedayn taasi mamida u soo jeediyeen maamulaha dugsigani Ismaaciil Cali Cartan aniga oo ku hadlaya dadka waalidiinta ee u timid dugsigan Guutaale dugsiga sare oo ka xidhmay ardaydii dhiganaysay dugsiga kan oo uu dugsigan xidhnaa ilaa iyo intii iskuulada furaayeen 12 casho aan ardayda waxbarasho oo haba yaraatay loo geystay aysan jirin sida darteed ayaan anagu oo waalidiintii ardaydaas iskuulka dhiganaysay kulnimi inaanu nimaadno iskuulkii oo xidhan Guutaale wasiirka wasaaradda waxbarashada waxaan u soo jeedinayaa inay iskuulka xidhmay ee aan intaas oo dhan ku soo tabcaynay inay si degdeg ah wax nooga qabtaan oo nala eegaan dhibaatada taalla dugsiga ardayda dadkan shacabkan ama waalidiintan isu keenay iskuulkan oo kamid ah iskuulada dawliga ah ee dawladda kaasoo ka xidhmay ardaydii dhigan jirtay mar labaad ka codsanay markoodii mar labaad ka codsanay wasaaradda dawladda iskuulkan macnaheedu wuxuu kamid yahay iskuulada dawladda marka hore marka iskuulada daana waxaan la simanahay ama caasimada ka furnaan ama gobolada kale iskuulkana wuxuu ku xidhmay laga warwareego marka iskuulkana waxaan ugu fiican xiristiisa maamulka iskuulka kala dambeyntiisa waan si fiican looga shaqeeyo